بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري محمد بن الحسين الآجري رحمه الله وقري 360 هجرة مركحي وحوليه كتاب الشريعة. وأنا كتاب كل هذا سلسلة أني يتحانيه السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وحشر كأني اللباتني اللحاد وقبل لابني باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. هل كان مؤلفك الصفات بوغليا أنصاف الجهمية يهاف جهمية أي ديدينهن وقبل لابدنا هل كان صفات قضيها أن جهمية يريره ashcariyada iyo maaturidiyada iyo sifaadka ay diidan yihiin ay ka dhaxleen jahmiyada ee nusuustuna sugtay ayuu halkan ka bilaabayaa. baabul iimaani rumayn buu u baab yahay bianna allaha caza wajalla ilaahay yadxaku inuu qoslo. iclamuu ogaada wafaqana allahu wa iyaakum allahana waafajiyo annaga iyo idinkabe lirashaadi hanuun oo min alqowli hadal iyo walcamali camalba qowl iyo camalba allahayna hanuuniye ana ahla alxaqi dadka ahlulxaq ah yasifuuna allaha caza wajalla alla waxay ku tilmaamaan bimaa wasafa bihi nafsah naftiisa waxa uu ku tilmaamay wa bimaa wasafahu bihi wuxuu ku tilmaamay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam وبما وصفه به الصحابة waxay ku tilmaameen رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء kaasina waa madhabka culummada miman itabaca dadka dariiqaa raacay kitaabka iyo sunnada iyo saxaabada iyo salafki walam yabtadic bidca aan la iman walaa yuqaalu fiihi sifaadka ilaahay lama yidhaahdo kayfa say u dhaxaysa say tahay say u eg tahay lama dhaho bal itasliimu lahu in loo hogaansamo oo sideeda lagu aqbalo waliimaanu bihi in la rumeeyo ana allaha caza wajalla yadxaku kadaa sidaasaa ruwiya can inabiyi sal slam laga wariyey sala allahu calayhi wasalam wa can saxaabatihi baa laga wariyey walaa yunkiru haadaa arrinkaa ma diido ilaa man qof mooyeen laa yuxmadu xaaluhu xaalkiisa aan la mahdin cinda ahli lxaqi dadka xaqa haysta agtooda. wasanadkuru minhu waa ka sheegaynaa maa xadaranaa dikru wixii sheegisiisa nagu soo xaadirteen ka xasuusanno wallaahu almuwafiqu lilsawaabi allah aha midka sawaabka waafajiya walaa quwata ilaa billaah awoodna ma jirta aanta alla uu bixiyo ahayn alcaliyi allihii sarreeye alcadiimi ee weynaa. hal qadiyad marka aan ku siiyo innaga rabbigan waan rumaynay inagoon arag baan rumaynay ilaahayna inagoon arag inaan rumaynay buu nagu ammaanay aladiina yu'minuuna bilghaybi waxaan ku rumaynay ambiyadaa uu noo soo diray iyo waxyigiisu dariiquu nagu hagay oo marna aayaadka uu soo dejiye la aqriyo ah marna aha aayaadka kownka ee ka marakacaya iyo uunkiisa khalqigiisa aayadda ah. mar haddaan nabigiisii rumaynay qur-aankana kitaabkii yahay kalaamka ilaahay oo ilaahay ku soo dejiyay aan rumaynay nabigiisana wuxuu sheegayaa inuu xaq yahay aan rumaynay ilaahayna ina yidhi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa waxay naftiisu jeclaatee uu doona isagama hadlo waa waxyi wuxuu ku hadlayo isagana le ina yidhi wamaa ataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu wax kastoo nabigu idinla yimaada rumeeya. innaguna rabbi aynaan arag indheheennana aynaan ku arag inta la nool yahayna aan la arki doonin aakhira un rabbi lagu arkayo sida nabiguba sheegay uu yidhi ogaada qofkiin ilaahay arki maayo xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto. aragtida soo jeedka lagu arkaan ka hadlaynaa riyadu waa baab gaara. haddaba rabbi haddaynaan arag oon bilghaybi ku rumaynay kitaabkiisii iyo sunnadii nabigana waxyina yihiin rumaynay
inta la inoo sheego inay siday tahay aan u qaadanno khiyaar ahayn inooma furno. wax aan ku diidna ma heli karno. marka adigu wax diidayso amaad faahfaahintiisa gelayso waa inaad wixii aragtay ama wax lamida aragtay. rabbi maynaan arag, wax lamidoon aragnayna ma jiro. dariiqa keliyaan rabbi ku ogaan karno xuquuqdiisu waa waxyigaas. dariiqa keliyaan rabbi magacyadiisa ku ogaan karno waa waxyigaas. dariiqa keliyaan sifaadka rabbi ku ogaan karno waa waxyigaas. masaladan caqli iyo waxay ila tahay kama furna. waayo caqligu wuxuu maraaya waa baabulqiyaas, wax inuu barbar dhigo. ilaahay waxaad dadan arag, waxaad barbar dhigtana aadan arag uusan jirinna. laba qaacidaa layna siiyey. wixii rabbi kuu sheegay waxyi kuugu yimaada rumayso oo qaado. qaacidana ogow, ilaahay wax lamida ma jiro, laysa ka milihi shayun. ihbaatun maca tanziihi waaye. wa huwa asamiicu albasiiru. ilaahay inuu wax maqlo oo arko, arag iyo maqal la leeyahay waan rumaynay. araggiisa iyo maqalkiisu inaan uunkiisa lamid ahayn, wax lamida jirinna laysa ka milihi shayun. saa darteed sifaadka maqal dheh, arag dheh, cizo dheh, qudrad dheh, daxik dheh, istiwa dheh, dhammaantood laysa ka milihi shayun baa weligaa kula socon. ihbaatkana wixii nas loo helo inaad diiddaay waxaad ku diidday maleh. aniga ilama saxan haddaad dhahdana aqligaagaa kaala weynaaday waxyigii rabbi iyo hadalkii rasuulka sala allahu alay wasalam. can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabi sal slam qaala wuxuu yidhi yadxaku allahu caza wajal allah waa u qoslaa ilaa rajulayni laba nin yaqtulu axaduhumaa midkooduu dilayo alaakhara ka kale kilaahumaa labaduba yadkhulu ljannata jannadii galayaan. yuqaatilu haadaa wuxuu dagaalamaa fii sabiili illaahi ilahay jidkiisuu ku jihaadayaa fa yuqtalu waa la dilaa, gaal baa dila dhinaca kale ka soo jeeda. uma yatuubu allahu tacaala allah wuxuu ka toobad aqbalayaa cala alqaatili kii wax dilay fa yuqaatilu isna waa dagaalamayaa fii sabiili illaahi fa yustashhadu isna wuu ku shahiidayaayo waa la dilayaa. labadu waa laba shahiid wayna isdileen. ka markii hore wax dilay baa gaal ahaa. islaamku hadduu soo islaamayna alislaamu yahdimu maa qablahu waay. wixii ka horreeyo dhan baa laga cafinaya, laga tirtirayaa. yowma waladatu ummuhu buu noqonayaa. halkaa waxaad ka garatay mar haddii nabiguu yidhi yadxaku allaahu ilaa rajulayni, xadiidkuna waa bukhaari iyo muslim. xadiidka daxigaa rabbigaa loo sugay sidiisaad ugu sugi. kayfa iyo lima midna lama ogola. maxsey ku dhici kartaa iyo sidee buu u eg yahay qosolkaasi? howladii kuu taallama si aad ku ogaata ma leh. adna ma arag, waxayna kuuma sheegin. inta waxyuu kuu sheegay ku ekow, edab yeela addoon baa tahay. wa can caliy bni rabiicata alwaalibi qaala wuxu uhi kuntu waxaana ridfa caliy bni abi aalibin radia allahu canhu. cali bni abi aalib baan gadaal uga saaraa fii jabbaanati alkuufati, saxaraha kuufiya bannaankeeda. jabbaanadu dhul bannaanka kuufa ah oo saxara iyo qubuura buu ahaa, ma magaca la dhihi jiray. fa qaala wuxu uhi laa ilaaha ilaa anta, adiga mooyeen alla kale ma jira ilaahay xaq lagu caabudo. ikfir lii dunuubi, ilaahu dunuubtayda ii dhaaf. fa innahu laa yakfiru dunuuba, dunuubta ma dhaafo ilaa anta, adiga mooyeen cid kaleoo dunuub dhaafta ma jirto. uma nadara ilaya waa i soo fiiriyey bui caliy bni rabiica fadaxika cali waa qoslay. faqultu ya amiira almu'miniin istikfaaruka rabbaka, rabbigaa dembi dhaafta weydiisatay, waltifaatuka ilaya anigaad isoo fiirisay tadxaku adoo qoslaya maxaad ka wadaa? labaad isku dartay. istikfaar baad ilaahay weydiisatay, waad isoo fiirisay, waadna qososhay. qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa ridfa nabiyi ridfa rasuulillaahi sal slam, rasuulka ilaahay baan gadaal uga saaraa saad hadda tahay, fii jaanibi alxarati, buuraha dhagaxa madow ee madiina dhinacooda. uma qaala nabigaa wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta, adiga mooyeen allah kaloo xaq lagu caabudo rabbow ma jira, subxaanaka xumaan oo dhan baad ka hufan tahay. ikfir lii dunuubii, dunuubta idii dhaaf. inahu laa yakfiru dunuuba, dunuubta ma dhaafa ilaa anta, adiga maahane. uma nadara ila asamaa'i, kor buu nabigu eegay. uma iltafata ilaya waa isoo eegay, fadaxika waa qosle. faqultu waxaan yaa rasuula allaahiyow istikfaaruka rabbaka dembi dhaaf weydiisatay, waltifaatuka ilaya anigaad isoo fiirisay tadxaku adoo qoslaya maxaad ka wadaa? qaala wuxuu yihi daxiktu waxaan u qoslay lidaxiki rabbii caza wajal, qosalka rabbigay
banana u qoslay yacjabu licabdihi buu cajabay buu la yaabayaa yaclamu og annahu laa yakfiru dunuuba dunuubta inuusan dhaafin ila allah alla ma ahane xadiidkani waa xadiis saxiixoo imaam abu daawuud iyo tirmidi iyo rag kalena ay la wariyeen imaam alajuri waa xadiidkii labaad laba xadiid baad haysa abu hurayre iyo caliy bn abi aalib وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يضحك الله عز وجل waa qoslaa ilىa rajulayni laba nin rajulu nin qaama istaagay fii jawfi leyli habeenka bartamihiisa wa ahluhu dadkiisuna niyaamun hurdaan oo fatatahara weyse qaatay ثuma qaama istaago yusalii xaaluu tukanayo fayadxaku allahu caza wajala ilayhi waa ku qoslayaa warajulu nin laqiya alcaduwa gaalada la kulmay fanazama asxaabuhu dadkiisii ay jabeen oo dagaalka dhabarka jeediyaan baqdeen wa habata sugnaaday xataa rasaqahu allahu tacala ilaahay ugu deeqay ashahaadata shahaada oo meeshii lagu dilay isna waa xadiid xasana oo imaamu nasaa'i baa la wariyey raximahu allahu tacaala xadiid kale wa can cabdillahi bn mascuudin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ina aakhira man yadkhulu ljannata qofka ugu dambeeya jannada geli doonaay rajulun nin wey yamshii soconaya cala siraati siraadkii jahannama korkeeda ahaa maraya fa huwa yakbuu kufayaa maratan wa yamshi waa soconaya maratan marna wa tascafacahu naaru naartaa leefaysa maratan oo umrahdiiya dabaysheeda holaceedaa maraya faidaa jaawaza hadduu gudbo iltafata ilayha wuu soo fiirinaya faqala wuxuu leeya tabaaraka aladii allihii baa khayrkiisu badan yahay najaanii minkiiga ka badbaadiyey laqad acطaani allahu caza wajal ilaahay wuxuu ii siiyey shay-an buu ii siiyey wax maa acطaahu axadan qofna uusan siinin min alawaliina waalaakhiriin kuwii hore iyo kuwii damba midna faturfacu lahu shajaratun geed baa loo soo koryeelaya la tusaya fayaquul wuxu uhi ay rabbi rabbigayow adninii minha igu dhowee faastadila aan harsado bidilaa hooskeeda wa ashraba aan caba min maayaa biyaheeda fayaquul lahu caza wajal ku dhihi ya bna aadam lacallii waxaa laga yaabaa in acطaytukahaa haddaan ku siiyo tas'alunii inaad ii weydiisato hayraha wax kale fayaquulu laa yaa rabbi maya buu ilaahayow fayucaahidu wuxuu la ballamayaa oo axdi kula gelaya anlaa yas'alahu inuusan weydiinin hayraha wax kale wa rabbuhu caza wajala yaclamu waa og yahay annahu sayafcalu inuu samayn doono weydiisan doono fayudniihi minha waa u dhoweynaya fayastadilu bidillah hooskeedu harsanaya wayashrabu min maaya biyaheedu cabaya faturfacu lahu shajaratun geed kalea loo soo koryeelayaa la tusayaa axsana ka wanaagsan min alulaatii hore geeddii hore geed ka fiican buu arkayaa fayaquul wuxu uhi ay rabbi rabbigow adninii min haadihi ilaahu ii dhoweedta geedan kale faliashraba an caba min maaya biyaheeda waliastadila an harsada bidillah hooskeeda fayaquul lahu caza wajal ya bna aadam alam tucaahidnii soo ilamaada ballamin miyaadan ila ballamin anlaa tas'alanii inaadan i weydiisanaynin hayrahaa wax kale tii hore waxaan ahayn fayaquulu ay rabbi walaakin haadihi tan un bas laa as'aluka hayrahaa wax kale ku weydiisan maayo tan uun halkan mar wa rabbu caza wajala yaclamu rabbigiina waa og yahay annahu sayafcalu inuu samayn doono haddana wax kale weydiisan doono fayaquulu llahu caza wajal wuxuu dhihi lacallii ma laga yaabaa ma mudnahay an adnaytuka mina haddaan kuu dhoweeyo tas'alunii inaad i weydiisato hayrahaa waxaan iyada ahayn oo kale inaad i weydiisato ma laga yaabaa fa yucaahidu wuu la ballamayaa anlaa yas'alahu hayrahaa wax kale inuusan weydiisanin wa rabbu caza wajala yaclam wuxuu og yahay annahu sayafcalu inuu samayn doono faidnihi minha waa u dhoweynaya fayastadilu bidilli habaarsanaya wayashrabu min maaihaa buu cabayaa faturfacu lahu shajaratun baa loo kasoo koryeelayaa hiya iyadu cinda baabi aljannati albaabka jannada agtiisa ah axsanu ka wanaagsan min aluulayeyni labadii horeba ka wanaagsan fayaquulu wuxuu dhi ay rabbi rabbigayow idninii ii dhowow min haadihi middan laa as'aluka ku weydiisan maaye hayrahu wax kale tan ii dhowey wax dambe ku weydiisan maaye wa rabbuhu caza wajala yaclamu waa ogyahay annahu sayafcalu inuu samayn doono wahuwa yacdurhu waa u cudurayaa liannahu yaraa wuxuu arkaa maa laa sabra lahu caleyhi waxuusan ka sabri karinoo usan ka adkaysan karin fayudniihi mina waa u dhoweynayaa fayasmacu wuxuu maqlayaa aswaata ahli ljannati dadka jannada ku jiray hadalkoodii iyo sheekadoodii codkoodu maqlayaa fayaquulu wuxuu hi ay rabbi adkhilni aljannata ilaahu jannada ii geli fayaquul ya bna aadam alam tucaahidnii miyaadan ila ballamin
annaka adigu laa tas'alunii inaad weydiisan hayraha wax kale fayaquulu ay rabbi adkhilniiha ilaah gelib u dheh fayaquulu ya bna aadam maa yurdiika minii maxaa iga kaa raaligelin ood ku qanacdaa ayurdiika makuu raaligelin an uctiyaka adunya inaan ku siiyo wa mithluhaa wax lamidana macaha uu la socdo ama wa milahaa xaal mid lamiday macaha uu la jiro fayaquulu ay rabbi rabbigayo atastahzi'u bihi migu ciyaaraysaa wa ana rabbulcaalamiin ana yaad igu jeejeesaysaa migu ciyaaraysaa buu yidhahdo rabbulcaalamiina fadaxika ibnu mascuudin baa qoslay oo faqaala wuxuu yidhi alaa tas'aluunii ma i weydiisaan mima adxaku waxaan ku qosli faqaaluu mima tadxaku maxaad ku qoslaysaa qaala hakada facala rasuulu llahi sal ly slam saasuu nabigu sameeyo noogu sheegay xadiidkaas uma daxika wuu qoslayo faqaala wuxuu nabiguna yidhi alaa tas'aluunii ma i weydiisaan mima adxaku waxaan ku qosli faqaala wuxuu yidhi nabigu min daxiki rabbialcaalamiin rabbigii caalamkan lahaa qosalkiisaan la qosli calaa maa caza wajal minhu ninkaa uu ku qoslaya xiina yaquulu markuu yidhahda tastahzi'u bi migu jeejeesaysaa fayaquulu wuxuu hi laa astahzi'u bi kuma jeejeesaya walaakinii anigu calaa maa ashaa waxaan doono qadiirun waan awoodaa mid awoodaan ahay fayudkhilhu ljannata buu gelinayaa xadiidkanna waa xadiid imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey halkaa mualifku wuxuu ku soo sheegay axaadiidtaas laga wariyey abu hurayra caliy bn abi aalib iyo laba xadiido ibnu mascuuda ridwaan ullaahi calayhim jamiican axaadiid kalena waa jiraan kadib wuxu uhi qaala maxamed alxusein hadihi sunanu sunantan kulluhaa dhammaanteed nu'minu bihaa waan rumaynaynaa walaa naquulu fiihaa dhihi mayna kayfa sidee waaladiina naqaluu ilayna raggii noo soo guuriyey haadihi sunan sunanta hum iyagu aladiina waa kuwa naqalu sunana soo guuriyey axaadiidta fi اطahaarati wa fi الsalaati wالzakaati wالsiyaami wاlxaji wاljihaadi noo soo guuriyey wey nusuustaasoo dhan dadka noo soo tabiyey wasaa'ir alaxkaami axkaamta inteeda kaleo min alxalaali waalxaraami ah faqabilaha alculamaau baa minhum iyaga ka aqbalay axsana qabuulin aqbalka ugu wanaagsan walaa yaruddu ma diido hadihi sunana sunankan ilaa man yadhabu qofkii ku tegaya madhab almuctasilati muctasilada madhabkeeda unbaa nusuustan diidaya muctasilada iyo jahmiyadu baabkan waa laba erayo isku macnaa saa darteed ogow ashcariyadii diidaysay inay tahay calaa madhabi almuctasila faman caarada fiihaa qofkii ka hor yimaada aw raddahaa diida aw qaala kayfa yidhaahda fattahimuuhu tuhma waxdaruuhu iska ilaaliya walidaalika imaamu daarimi markuu baabu daxik baabu ihbaati daxik uu baabka ka dhigay fi naqdi cala almariisi axaadiidana uu sheegay tawiilka faasidka muctasiladana uu sheegay tawiilkooda inuu baatil yahayna uu sheegay kalaam qiimo badan buu leehay wuxuuna ahaa dadka jahmiyada iyo muctasilada madhabkooda ugu yaqaanu ahaa qolyaha diidaya marka ee nusuustaa yidhi waa ma aqbalayno baynu soo guurinaynaa waxay dhaheen iyo jawaabtuu siiyey iyadoon ku boorinaya nin kasta oo jahmiye iyo ashcariye axaadiidu sifada isugu yimaadaan inuusan moogaanin kitaabka abu saciid cuثmaan ibni saciid idaarimi kiisa hore waa radd cala aljahmiya iyo kiisa dambe waa naqdu cala almarisi iyo ibn thalji iyo uu wada jawaabaya ninka hadalku yidhi aan kuu soo kooba wuxuu yidhi mucaaradka xadiidtan tafsiir daxik dadkii diidanaa beeniye waxay dhaheen daxiku rabbi ridaahu wa raxmatuhu wa safxuhu can الdunuubi alaa taraa anaka taquulu ra'aytu zarcan yadxaku laba arrimood buu sheegay hadda daxikii rabbi waxay ku fasireen buu yidhi ridihiisa iyo naxariistiisa iyo cafiguu dunuubta ka cafiyay ku fasireen iطlaaqa wajha iطlaaqi daxiki cala albaariina waxay lamid ka dhigeen kamaa yuqaalu azarcu yadxaku markuu dhalaalayo wuxuu yidhi fa yuqaalu lihada almucaarid ninkan xadiidka ka hor imanaya waxaa lagu dhahayaa qad kadabta fii ma rawayta can inabi sal slm fi daxiki horta waad beenisay
axaadiidii daxiga iyo qosolka aad ku warisay. shabbahta daxikahu bidaxiki zarci, daxigii iyo qosolkii rabbi loo tiiriyeyna ka beertaad ku baad la mid ka dhigtay. beerta qosolkeeduna qosol maaha, waa cagaarkeeda iyo dhalaalkeeda daxiku zarci looga jeedaa. tusaalaha marka daxiga looga dhigay saasaadna tiri ee waxaad noo sheegtaa facaman rawayta haada tafsiira min alculamaa'i ana daxika rabbi ridaahu wa raxmatuh fasamihi, noo magacow culummada la yaqiinay saxaabiya salafa tafsiirka cidaad ka warisay noo sheeg. wailaa fa anta almuxarifu qowla rasuuli sal slam, haddii kale qowlka rasuul ilahi nin taxriifinayaa tahay bita'wiili dalaalin, tafsiir baatila oo rabbi daxigiisii aad ku shabahday daxikallaahi, shabahata daxikii ilaahay alxayi alqayuum ahaa, alfacaalu limaa yashaa wuxuu doona sameeya, dilwajhi alkariimina ahaa, wasamci asamiici ahaa, walbasari albasiiri, bidaxiki zarci almayiti, beer aan naf ku jirin oon qoslin baa daxigii ilaahay ku shabahdo, daxika zarci oo kaleeta wayaa tiri. daxikaasi qudro ma leh, qosolna ma awoodo, qosolkiisa tusaaluun baa loo qaataa, tusaalaa loo soo qaataa. daxiga ilaahayna wax lamid oo tusaale loo qaata ma laha, laysa kamidli shayin buu ahaa. maxaad beer ugu shabahday daxik mayid oo beer oo zarci oo caajis ah? wayxaka wuxuu yihi bala kugu dhacday. ina daxika zarci nadaaratuhu wa zahratuhu wa khudratuhu, dhalaalkiisa iyo iftiinkiisa iyo cagaarantiisa wey. fa huwa daa abadan maadaama akhdar intuu cagaaran yahay weligii, daaxikun likulli axadin, qofkoo soo yimaadaba waa u qoslaya, lilwaliyi waalcaduwi, weli iyo saaxiib iyo cadow waa u qoslaa zarcigu, weliman yasqiihi waliman yaxsuduh, qofka biyo ku waraabinaya ka guraya labada waa u qoslaya intuu cagaaran yahay. laa yaqsidu bidaxikihi ilaa shayin, qosolka zarcigu dhalaalayaada dan uu zarcin ka leeyahay ma laha. wallahu yaqsidu bidaxikihi ilaa awliyaa'ih, ilaahayna daxikiisa iyo qosolkiisa awliyadiisa u qoslaa markuu ficilkoodu cajabiyo, acdaadiisana waa ka leexiyaa markuu u cadhoodo. daliilku ficilka ilaahay qowmna waa u qoslaa, qowmna waa ka leexiyaa, waa ka xidhaa. beerta qosolkeeduna waa min nawci almajaaz, daxiga ilaahayna waa asal iyo xaqiiqa lidaxik, siduu doonuu u qoslaa. beertuna ilaa la guroy qallasho zarcigu wuu qoslayaa un. amaa qowlkaaga aad leedahay wuri daxikuhu ridaahu wa raxmatuhu, qaarku waa ka run qaarna waa been. maxaa yeelay buu ihi waa ilaahay qof uma qoslo uusan raalli ka ahayn, waa laasimkiisii baad ku fasirtay. waxaa isugu imanaya qofku raalli ka yahay inuu ka raalli yahay iyo inuu u qoslaa isugu imanaysa. adiguna ridihii baad ogoshahay, daxikii labadii uu islaahay isugu daray midna waa diidanna waa beeninaysaa. haddaad xadiid abi muusa oo uu sheegay aad ka argagaxday oo daxigii daxikullaahi daxiku zarci ka dhigtay, meelaad kaga baxda ma jirto xadiidka ibni mascuud oo beeninaya tafsiirka zarcigaad ku fasirtay. kadib buu wuxuu yiri xadiidka ibni mascuud soo maray min daxiki rabbialcaalamiin, daxiku rabbialcaalamiin marka lagu yiri daxiku zarci ma shabaho. saas darteed wuxuu yidhi warniyaho iswaanso in arrintaasoo kale zarciga daxik majaaz fi lugati alcarab la yidhaahdo waan naqaanaayoo kama aqoon lihin, laakiin kaasi waa ka duwan yahay buu yidhi. macnihii luqadda uu keenayay sidan aad u fasirtay kan isma qaadan karaan, siyaaq iyo qaraa'intuna ma aqbalayaan. qowlul casha waan maqalay, macnihiisana waan fahanay. daxiku rabbina macnihiisu aad buu uga fog yahay buuri markuu yidhi bu ilaahi maa rawdatu min riyaadi alxusni macshabatun khadraa'u jaada calayha musbilun hatilun yudaaxiku ashamsa mina kowkabun shariqun mu'azarun bigamiimi nabti muktahilu.
ka iyo tan isku mid ma aha kadib waxaa yimid ibnu taymiya ibnu khusayma fii kitaabi الtawxiid isna baabu ihbaati daxiki rabbina caza wajala bilaa sifatin tasifu daxika annagoon tilmaam bixinaynin sii tilmaamaysa qaab kaasuu yahay ilahay u qosla aan dhahaynin aanan daxika makhluuqiintana ku shabahaynin waxaan rumaynaynaa ilaahay inuu qoslo sida nabigu noo sheegay sal slam wixii intaa ka badanee qaabaynana waanu ka aamusaynaa waayo qaabka uu yahay rabbi baa la khaasa waa haybo ma ogin nama ogeysiinoo nalooma sheegin annagu intuu nabigu yidhi baan sheegaynaa intiina waa rumaynaynaa qalbiga annaga waan ka aamusaynaa waxaan naloo sheegin oo cilmigeeda ilaahay gaar la yahay kadibna axaadiis dhowraho abu mascuud iyo abu hurayre iyo abu saciid alkhudri iyo anas ibni malik abi muusa alashcari cali bni abi aalib asmaa binti yaziid bni sakan cabdillahi bni camr bni alcaas axaadiis laga wariyey ayuu wariyey halka faahfaahinta waa u doonan doontaa intaasoo cashirkeennana ku eg yahay insha allahu tacaala cashirkeenna 27 xiga wuxuu ka bilaaban doonaa baabu taxdiiri min madaahib alxululiyati intaa cashirkaas iga manayno sidaa nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu